waxaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle soo gaaray qaybtii labaad ee odayaasha dhaqanka beesha Xawaadle oo qayb ka ah soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle. waxaana garoonka diyaaradaha degmada Jowhar ku soo dhabeeyay guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle. gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ahna kusmaha gudoomiyaha gobolka Maxamed Cabdi Sheekh Xando iyo gudoomiyaha guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle Cusmaan Maxamed Muqtaar Cusmaan Baari ayaa soo dhaweyn u muujiyay wafdiga maanta soo gaaray magaalada Jowhar. soo dhaweyn wufuud aad iyo aad u qiimo badan oo ka socota guddigii beesha Xawaadle ka mid noqon lahaa amba qaybin lahaa ergadii uu qayb gali lahayd baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle. aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo qiimaha sharafta leh iyo sidaad u soo ajiibteen codsigii guddigii doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle. maanta maalintii saddexaad ee aan soo dhaweyno wafdi intaan la eg waxaan leeyahay waxaan mahad weyn u jeedinayaa beesha Xawaadle oo maanta wafdigooda ugu ballaaran soo gaareen. waa idin sugayni waxaad ka soo jawaabteen maxaa la dhihi jiray baaqeynii jadwaleed. dhinaca kale odayaasha dhaqanka beesha Xawaadle maanta soo gaaray magaalada Jowhar ayaa ka hadlay ujeedka u yimaadeen magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. caalamka binu aadanka saddex markay gaaraan waxa loo sameeyay inay maxaan ku yiraahdaa rafiiq sameeyaan bil qoomiyad dhan oo nool oo lehay nidaam sax ma ahan diinka islaamka iyo taariikhda maadiga labadaba ku macad. waxaan rabaa inaan markaa arrintaas waxa dhacday Hirshabelle markii la dhisay ninkii la oran jiray Nicholas Kay oo iga UN ku joogay dhismay markay dhamaadeen dadka uu shahaado sharaftiisa aan ka mid ahay in arrintaas daboolo ayaan u imiday 20 sano ka hor dawladdan maanta dabada la haayo ilaa gobolooyinka ragii soo dhisay ayaan ka mid ahaa ilaa bagaati ilaa waqti xaadir. alxamdulillah tiimkan maanta anaa hogaaminayo waxaana jeclahay in aan muxuu ahay dhismaha labaad ee Hirshabelle aan ka mari dhalin. Yusni Maxamed Ahmed, Bulsho TV, magaalada Jowhar.